kulankii El Clasico kan ugu sareeyay ciyaarta kubadda cagta midka kulmiye ciyaartooyda ugu fiican dunida waqtigan kulanka kaliya ee daawashadiisa ay ka midaysan yihiin taageerayaasha ciyaarta kubadda cagta cadaawada ay isku muujiyaan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid weli misweydiisay mise waxaad aragtay oo kaliya Lionel Messi oo gool ka dhalanaya kooxda kubadda cagta Real Madrid ama waxaad aragtay Benzema oo shaqo Barcelona gool ku ridaya balse sidaa maahan cadaawada labadan koox ay isku muujiyaan xilliga la ciyaarayo kulanka weyn ee El Clasico waxa ay salku ku haysaa arrimo siyaasadeed go'itaanka gobolka Goonigoostka ee Catalonia cadaawada siyaasadeed ee Catalonia iyo caasimadda Spain ee Madrid waxa ay soo bilaabatay 11 September 1714 markii ciidamada Spain ay xoog ku qabsadeen gobolka Catalonia kuna soo direen Spain inteeda kale waqtigii boqor Philip waana waxa maanta dhaxalsiiyay in dadka ka soo jeeda gobolka Catalonia ay nacab weyn u muujiyaan Spain inteeda kale waxa ay dadka gobolka Catalan wali ayeen kuwa xusul duub ugu jira qaabkii ay ku helaayeen xurnimadoodii hore waxa gobolka matasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona halka caasimadda Spain ay matasha Real Madrid taasi uu siiyay boqor Alves calaamada taajka ee boqorka si loogu aqoonsado kooxda boqortooyada Spain kulankii El Clasico ay Real Madrid ku adkaatay 11 gool iyo gool waxa ay natiijo aan u fiicneen qof walba oo Barcelona taageera balse waxa gadaal ka soo baxday in Daniel Franco oo mid ka mid ah ciidamadiisa u diray ciyaartooyda Barcelona waqtiga ciyaaray kuna yiri waxa tihiin dad liita wadaniyadoodana ay liidato haddii aadan u ciyaarin sida aan doonayno waxaad la kulmi doontaan ciqaab aadan weligiin ilaawi doonin waxa ay handadaad iyo sidoo kale xoog u sheegasho oo aan cidna looga gamanin waxay taasi dhaxalsiisay in kooxda kubadda cagta ee Barcelona looga adkaado 11 gool iyo gool Daniel Franco ayaa afgambi ku qabsaday 12 Julaayo 1936 talada wadankaas waxaana dhacay khilaaso xooggan xilli ay bilowday dagaal toos ah oo socday 3 sano bar Daniel Franco waxa uu ku guuleystay dagaalkaas maadaama uu gacan caawinaad oo culus oo ka helay Hitler iyo Mussolini sida taariikhda ku xusanna waxa dagaalkan ku dhintay 1 milyan oo ruux waxaana ku dhintay dagaalkan siyaasiyiin caan oo ka soo jeeda gobolka Goonigoostka ee Catalonia waxaana qayb ka ahaa Joseph Zona oo ahaa garabkii bidix ee jamhuuriga ahaana qaraankii gobolka Catalonia kaasi oo la daldalay waxaana si toos ah kaga soo horjeeday ficilada guracan ee Daniel Franco oo kula kaco dadka gobolka Catalan ka soo jeeda dadka reer Catalonia waxa loo diiday in ay qaadaan heesta baarka oo ahayd baarka koox way ka weyn tahay sidoo kale waxa loo diiday in meelaha fagaarada ay ku adeegsadaan calanka gobolka Catalan heshiiskii Alvaro de Stefano mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiicneed zamankaas ciyaarta kubadda cagta waxa markiisa hore nasiib u yeeshay kooxda kubadda cagta ee Barcelona maadaama ay ka wada heshiiyeen kooxda uu ka tirsanaa River Plate 1953 balse waqtigan waa haliyay Real Madrid markii hore waxa ay baarka ay ahayd kuwa liishay River Plate balse xiriirka Spain ee Conviva ayaa diiday heshiiskaas oo ku aadanaa in Alvaro de Stefano uu Barcelona ku biiro sabab waxa looga dhigay in ciyaaraankan milkiyadiisa leeyahay kooxda kubadda cagta ee Deportivo Los Mineros waxaana sidaa ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xilli uu waqtiga hogaamiye Santiago Bernabeu qiyaanoolihii Luis Figo waxa ay kan dadka Barcelona iyo dadka reer gobolka Catalan ay u yaqaanaan qaa'inkii xumaa waxa uu ka tagay baarka xilli uu si toos ah ugu biiray kooxda ay cadownimada xoogan kala dhaxaysay Real Madrid waxa uu ciyaarankan u noqday ciyaarankii ugu horeeyay ee taariikhda marka la fiiriyo u kala wareegay kooxaha Barcelona iyo Real waxaana si weyn kaga carooday taageerayaasha Barcelona iyo madaxda kooxda kubadda cagta ee baarka waxaana ilaa waqtigan dadka Barcelona taageeray u yaqaanaan Luis Figo qaa'inkii xumaa waxa jirta kulankii ugu dambeeyay ee dhaxmaray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Real Madrid in uu baaqday hal jeer taasi waxa sabab u ahayd dadka reer Catalonia waxay markaas si xoog leh ciyaarta weyn ee El Clasico ay ugu muujiyaan in ay doonayaan in Spain inteeda kale ay ka go'aan wali waxa muuqata in wadanka Spain uu diidan yahay in si gooni ah in xornimo ay helaanba dadka reer gobolka Catalonia ka soo jeeda tani waxa ay sabab u noqotay in kulankii ugu dambeeyay El Clasico ee dad badan oo 40 ka badan dhaawacay ay ka soo gaaraan oo fudfud sidoo kale waxa halka la geeyay ciidan badan ama askar badan oo boolis ah kuwaas oo kala xakameeya taageerayaasha labada koox balse dadka ka soo jeeda gobolka Catalonia wali waxa maskaxdooda ka guuxaysa in Spain intooda kale ay ka go'aan balse siday kula tahay adiga goormaysa dhix doontaa in dadka reer gobolka Catalonia ay helaan xurnimadooda
isla markaana ciyaarta Barca iyo Real Madrid ay noqotay mid caadi ah oo labada koox ay ku xifaaltamaan.